Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayga qaaligaygu xidhan aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin. kusoo dhawaada channelkayga Sukeena channel. maanta waxaa idinla wadaagayaa sida idin muuqataba waxa weeye sidaan u sameeyay suqaarkan quruxda badan leh. waa suqaar aad u macaan, qurux badan, wada nafaqo ah, khatar ah, kaale iska arag ah. waxa weeye suqaar aad wax walba ku cuni kartid oo waxba diideynin. marka insha Allah waxaad leeyahay soo tijaabiya suqaarkan waa ka heli doontaan. marka ila arkasaan u sameeyay fiidiyoga dhameystiran ila daawada insha Allah. soo dhawaada, daawasho wanaagsan. asxaabtay sharafta leh, halkan waxaan kusoo diyaarsaday alaabtan ka samaysan lahayn suqaarkeena. marka halkan waxaan ku haystaa waa hilibkaygu waa jeed kaliya, wax la fikuma jiraan. si yarina oo soo gogooyay. halkaana waxa igu jirta khudaarteedu waxay ka kooban tahay waa baradho oo aan si waaweyn u soo gogoostay, digirta cagaaran amba bees oo half cooked ah, way karsan tahay laakiin bisayl ma aha, waxba wali u harsan. carrot ayaa halkan ii yaala. halkan waxa igu jira waxa waaye French beans geedka la dhaho, iyo galeydina waa half cooked, ayadana bisayl ma aha, waxba u haray. galeyda iyo digirta cagaaran labaduba way karsan yihiin laakiin bisayl maaha inba u hadhay. halkan waxa ii yaalo waxa waaye basashiya iigu jirta. halkan waxaan ku haystaa xawaashiyaashi, waa xawaash oo mixed ah oo isku jira, milix yar iyo basbaas cas. halkan waxaan ku haystaa waxa waaye basal yar iyo 3 nooc oo barbarooni ah iyo koosta amba spinach. marka basasha, barbarooniga, spinachka suqaarku markuu noo bislaado baan korka kaga dari doonaa insha Allah. halkaana waxa igu jirta waxa waaye toon iyo kabsar aan isku soo tumay. marka waa kaasa suqaarkayga inta u jeedaan ayuu ka kooban yahay. haddana ila arkasaan u sameynaa insha Allah. daawasho wanaagsan. asxaabteeda qaaliga sidii dabka soo saaray kadibna ugu horey waxaan ku shubay basashii. haddana saa u jeedaan saliidii aan ku darayaa. marka xoogay waxaan sugeynaa intay basasha noo soo yara shiilmayso amba noo soo yara casaanayso. waa tana basashii waa noo soo shiilantay. lama rabo inay xoog u shiilanto amba u casaato. marka haddana saa u jeedaa waxaan kusoo darsanaynaa waxa waaye hilibkana ay nooc baa isticmaali kartaa. hilib geel, hilib lo, hilib ari, wixii aad haysto unbaa suqaar ka samaysan doontaa insha Allah. marka si fiican aan isugu walaaqinaa hadda basasha iyo hilibka. asxaabteeda qaaliga saa u jeedaan basashii markii aan hilibkii ku soo darnay, hilibku wuxuu dhalay amba uu sameeyay biyo. marka waxaan sameynaynaa dabka low baan uga dhigaynaa amba dabka kan u hooseeyaan keenaynaa. waxa waaye distiidana waan dabooleynaa. marka hilibkii marka hore wax yar oo biyo ku jireen marka dabooshid, hilibku wuxuu dhalayaa biyo kale uu sameynaya. biyuuna hore uga ma qalalayaan maadaama oo dabku uu low yahay. marka waxa waaye hilibka taas wixii ka saacidaysa inuu hilibku soo bislaado amba uu soo jilco. marka biyahan hadda ku jiro iyo kuwa mardhow markaan daboolno uu dhali doono, marka uu soo gursado ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. asxaabteeda qaaliga saa u jeedaan hilibkii biyuhu isagu dhalay uu soo gursaday amba uu soo dhameystay. marka waxaan sameynaynaa waxaan kusoo darsanaynaa hadda xoogay biyo ah. marka biyahan hilibka kusoo darnay markii ay noo soo karkaraan waxaan kusoo shubanaynaa waxa weeye khudradeeni. marka khudradda saan hore idin kusoo sheegay waxay ka koobnayd baradho, carrot, galey, bees iyo French beans. laakiin adigu wixii aad haysatid ku darso insha Allah. qasab maaha inta aan ku darsaday inaad adigana ku darsatid, wixii gurigaaga yaalo ku karso. marka haddana saa u jeedaan waxaan kusoo daray waxa waaye kabsartii iyo toontii aan isku soo tumay. haddana xawaashidii aan kusoo daray waa xawaashi oo mixed ah, milix yar iyo basbaas cas. marka intan aan si fiican isugu walaaqaynaa. dabkaan ku karsanayo oo suqaarkaan ku bislayn doonaa waa dab aad u daciif ah. kadib markaas ku walaaqno waan dabooli doonaa insha Allah. marka waxaan rabaa biyahan hadda ku daray oo hadda ku jiro suqaarka in hilibka iyo khudradda ay kusoo bislaadaan, waliba wax yarna ay iga soo haraan oo suqaarka u noqoto qoyaan. marka dabka waxa waaye low marka uga dhigto oo dabooshid
cuntada maanta dhan iska karkaraysaa waxayna ku bislaanaysaa uumi waxa waaye suqaar macaan uu ku soo baxaya marka waqtigeeda iska qaato maanta dhan iska soo karkarto waan ka warhayn doonaa insha Allah kolba waan walaaqi doonaa markii intaan isku soo bislaato kadib ayaa isku soo laabanayna asxaabteeda sharafta leh asxaabteeda qaaliga waan isku soo laabanay suqaarkeeni maanta dhan uu iska karkarayay ilaa 30 daqiiqadood amba 40 daqiiqadood ku dhawaad uu saarnaa biyihii aan markii ku shubnayna saa u jeedaan hadda way kasii dhamaanayaan amba uu sii gursanayaa marka hadda waxaan sheegareynaynaa hilibka iyo baradhada bal inay iyakuna bislaadeen baradhadu way kala jabisaa saa u jeedaanba marka waa inaan gacantii afka ku fiirinaa inay bislaadeen iyo in kale marka waa kaasa waxa waaye waan fiiriyay way bislaadeen marka hadda markuu suqaarka noo soo bislaado waxa ku darsanaynaa barbarooniyaasheeni 3 nooc barbarooniga ahaa waa casaan huruud iyo akhtar koostadii amba spinachki xoogay koosta amba spinacha iyo basasheeni oo si dhuudhuuban oo dhaadheer sida u jeedana u soo googoostay marka inta markaan ku darno si fiican ugu walaaqaynaa dabka ilaa hadda wuxuu yahay low amba waa dab sidii uu ahaa buu yahay oo dab hoose ilaa hadda ku karnaya suqaarka marka waan isku walaaqaynaa waan dabooleynaa ilaa dhowr daqiiqadood baan isku hoorineynaa marka xoogay waxaan dareemayaa suqaarka inay bilaabiyay yahay marka wax yar oo biyaan tifiq ku siiyay marka waxaan sugeynaa intani isku soo yar hooreyso insha Allah waa kana suqaarkeeni uu isku soo huuray udkoonka iyo carafta ka soo baxaysa ma maleynaysid barbarooniyaashii wax waaye basashaan ku darnayba udkoon siiyay suqaarka marka waa kaasa suqaarkeeni saas ayuu diyaar noogu yahay dabkaan ka daminaynaa kadibna waxa waaye waa ka soo ridanaynaa insha Allah asxaabteeda qaaliga suqaarka maanta waxaan rabaa inaan ku cuno sabaayadan amba jabaatidan lacal hadii aad u baahan tihiin sabaayadan kanaalkayga maraan soo galiyay waa ka soo fiirsan kartaan korkana waa idin soo saaraya insha Allah suqaarkina saa u jeedaan madeebadan aan ku soo gurtay amba boolkan sida quruxda badan aad u jeedaan waxa waaye uu ku soo baxay suqaarkan quruxdiisa waxa u sii dheer udgoon caraf iyo macaan laga sheekeeyaan familkaaga xaajigaaga martidaada amba naftaada hadii aad u sameeysid I'm sure 100% inay ka heli doonaan adna aad ka heli doontid marka videogan hadaad ka heshiin asxaabtiina iyo familiyadiina la wadaaga macquul ayakana inay ka helaan oo ay wuxuun ka faa'iidaan insha Allah haddii aad ka heshaan videogana like ta share ta subscribe ta iyo commentiga hala dhaafin insha Allah soo intaan videoga ka xiga ka kulmayno waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah aad baa idin wada salaamayaa dhamaantiin